waxaa kale oo meesha inoogu jiro oon hilmaamay ayadana waa horaan idinku sheegay wixii aan khaldan laga raalli ahaado dee buug ugu yaalaa marka ninkii ku cuslaata xataa cart baan keenaynaa oo uu bannaanka gaari baan u geynaynaa buugga hala gato muhiimaddeedu waa intaas waxaan rabaa inaan yeero sheekh oo community leader ah qoraa ah bulshada magac weyn ku leh meel weynna u joogo sheekh cabdiraxmaan bashiir oo meel fog ka soo sabro nala joogo sheekh soo dhawow بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله aad baan ugu faraxsanahay inaan joogo caawa ama galabtatan buuggan ama dahafurkan buugga ee uu qoray docteerku cabdirasaaq warfaa anigu waxbaan qorqoraa laakiin carabi baan ku qorqoraa waa laygu haystaa waxaa dhaaf soomaali magaca ugu qori laadahay waa dhibaatay haysataa laakiin marka aan idhaahdo fikir carabi baan ku fikiraa marka aan laakiin waxa aan ka fikirayo waa wax danta soomaalidu ku jirto waa laba arrin oo iska hor imanaysa marka aan fikirayo carabi baan ku fikirayaa dadka aan u fikirayana waa dad soomaaliyeed shanta soomaaliyeed ba waan jeclahay ka mid baan ahay waan u noolahay waan la noolahay waxaan rajaynayaana inaan u dhinto hadduu ilahay dhahdo okay marka inta aan ka baxo in buug la qoro su-aal baa ku xidhan maxaa loo qoraa buug maxaa wax loo qoraa arrin caadiya maaha inta aad madaxaaga la tashatid iyo dareennadaada kadibna tiraahdid waxaa madaxaaga iyo dareennadaada ka soo go-ay qalin u bedel qalinkuna ha tabiyo message bini aadan aad kula hadlaysid wax caadi ah maaha magacayga muxuu ahay sheekh axmed marka uu lahaa waxbaan la dareemayey iyo gabadhii waa wax caadiya maaha inaad qortid marka qaarkood anigoo guriga joogahay waxaa igu dhacaa inaan qoro article maqaal waan kacaa waxaan fadhiistaa maktabadda qalinkaa qaataa xaaska imaata waxay tirahdaa cuntada waxay ku garab tahay ilaa saaka ma arigan saaka waxaan ku maqanahay waxaan qorayo waxaan ku maqanahay waxaan wax ka qorayo wax caadiya maaha inaad wax qortid waa oohin waxaad qoraysid waa dareen marka waxaan isweydiiyaa dadku ma waxu qoraan laba shay mid unba waxu qoraan inuu qorista jecel yahay waa iska qorayo waa nin gabayo hadal fiican ku gabayo maxaad u gabaydaa wallahi waan iska gabayaa waan ka helaa nin baan maalin ku yidhi gabar buu qabaa uu jecel yahay waxaan ku yidhi gabadhan maxaad u guursatay waan jeclaaday markaad jeclaatayna waan guursaday markaad guursatayna su-aalaha badada iga daabir su-aala badan anigu waxaa ahay dadka oo aaminsan insaanku ama qofku waa jire su-aal isweydiiya kaa-in mutasaa'il waxbuu isweydiiyaa isweydiinta waxaa keenaya qofkani waa metaphysics waxa maqan buu doodoonaya waxaa la isla ogyahay haddaad doodoontid macno ma sheegayso waxa maqan waa inaad raadaysid doctor cabdirasaaq wuxuu doodoonay wixii sheekooyinkii aan laga sheekay wararka aan la ogeyn bidabdi anigu reer jabuuti baan ahay laakiin asal waxaan ka soo jeedaa halkaasaan ka soo jeeda dadkii lagu laayay eeshaca adeeradii baa ku jireen marka mucaanaad weeye waxaa taariikhda meesha ku qoran beri baan ka akhriyay journaal carabi ku soo baxo kuwait ka bixi jiro mujtamac loo dhihi jiro waxaa lagu qoray gobolka la ilaaway yaa ilaaway dadkiisiiba horta ilaaway intaynan ilaawinbaba carab iyo muslim iyo adduunku annakaa ilawnay meesha dan maxaa ka dhacay muxuu waxaan uga dhacay waxaasoo dhan baa in la baadho u baahan
gabadhu waxay tiri taariikhda waa in la akhriyo anugu waxaan idhahdaa taariikhda 3 nooc u baahan tahay in la reebo raadkeega la reebo arshiifka la dhigo qof kastoo yimaadana uu kala soo baxo uu dib u eegi karo waa number 1 number 2 waxa weeye waxaa arshiifka la dhigay inta la soo saaro konteksigii ku meersanaa inta la akhriyo in la qoro ma aha in la qoro waxaa dhacay magaalada dad lagu laayay macna ma sheegayso wixii dhacay wixii ku meersanaa waa ina aragna ingiriis amxaar ethiopian anu ma dhaha amxaaran dhaha amxaar ingiriis talyan faranji cusmaaniyad turkigii maxaan ku idhaahdaa siraacii iyo loolankii ka jiray marxaladda dunida sideena loo akrinaya markaas kadibna waa in la fasiro taa khatarku taarikhda in la macneeyo storiga waa in la macneeyo qur'aanka maarta anu wadaadanahay qur'aanka xoogaan u akhriyaa aniga muhiim iima sheegayso inuu nebi muuse reer bani israa'iil ahaa waxaa muhiim ii sheegaysaa nebi muuse siduu fircawn uga hortagay muxuu qabtay siduu dhacdooyinkii taariikhda siduu u macneeyey muxuu yeelay waa inaan taariikhda macnayno carle markis ninka dhahdo muxuu sameeyey taarikhdu macnay wuxuu ihi maarata oraax cajiiba fikirkiisa waan ku horjeedaa laakiin hadalladiisa qiimiga badan baa jira wuxuu ihi falaasifadu iyo raggii igu horreeyey taariikhda way akhriyeen anna waxaanu imida inaan taariikhda bedilo taariikhda inaan bedilaan u imiday aayad qur'aana oo ku jirta suuratu ahli cimraan baan ka akhriyay waxaas wuxuu ilaahay yidhi markay taariikhdu dhacdo 3 shay sameeya qad khalat min qablikum sunan hortiin waxaa dhacay sunan historic baa dhacay bini aadan baa soo maray ana kuguma horin taariikhda maxaan yeelnaa ilaahow fasiiru fi lardi dhulka socda maxaan joojiyey statikogu ma fiicno mot in la istaago annagu waan istaagna haddaan soomaali lahay aan taaganahay inaan taaganahay mayna tusaa 60kii meeshaan taagnayn baan taaganahay 2022 mashaa'irkii 60kiina haystaa imikana haysta halka markii la waayey baan imika laanahay ilaa imika ya ayaanta uu hayle silaasa intuu 9 ugaas u yeedho uu 10 u yeedho uu ballan qaado in yar insha allah raadiga noq ayaan jabaynay tiyaa imika socotaa xamaray ka socotaa hargeysa ka socotaa jabuuti ka socotaa etoobiya ka socotaa kenya ka socotaa ma aan dhaqaaqin ilahi wuxuu le fasiiru laakiin siiru inaan u fahminaa soconno halkan ka socda leeyahay siiru fi lardi meesha la soconayana waa halkee waa arladoo dhan fi lardi maraykan daawana maraykan wadda inta legsee loo abuuray sangabuur se u noqotay dowlad cajiiba wakaa fasiiru fi lardi weeye maxaa ku xiga fasiiru fi lardi fanduruu markaa wax eega fiiriya fasira qad khalat min qabl fasiiru fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibat ilahay usoo wuxuu yihi hada bayaanu linnaas waxa aad aragteen waa caddayn loo caddaynayo waa hudan waa meeshii laga baxayan halkaa ku jirtaa ummaddan maxay ku jabtay tani maxay ku guulaysatay waa mawcida duruus baa lagala soo baxayaa cabdirasaaq waa mahadsan tahay waxaad qortay bug aan akhrin doono laakiin markaan akhriyana waxaad ka arki doontaa buggayga anigoo ka warramaya buggaaga soomaali weyn in badan baa igu xidhan oon muxaadarana ka geli oon beri doonaa insha allah aad baan u jecelahay qoraalada dhammaantiinbaba maanta waa adiga wax lagu xusayo waa maalintaadi